مسلما كنت وأبقى مسلما، تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما كنت وأبقى مسلما، تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما أحمل للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta naga mudan kan naga dhageysanaysaan waa idaacadda quraanka kariimka. dhegeystayaal, idaacadda quraanka kariimka ala waxaad kaga barateen soo gudbinta munaasabaadka gaarka ah iyo fadaaisha ay ximbaarsan yihiin bilaha islaamka. minni muslima sha'ani Allahu li is'ad al-wujud himmati la laysa tadri ma al-hudud شاءني الله لإسعاد الوجود همتي لا ليس تدري. dhegeystayaal goordhow waxaynu idiin soo gudbin doonaa muxaadaro ka hadli doonta fadliga soonka yowmu caashuuraa oo ku beegan maalinimada sabtida ah. isla muxaadarada waxaad ku dhegeysan doontaan hadday kulmaan yowmu caashuuraa iyo maalin sabti ah sidee la isku waafajiyaa, ma bannaan tahay in la soomo maalin sabti ah? waxaad kaga baga doontaan muxaadarada. لم أحد وإلى المعروف أدعو من أجد وعن الإسلام يوما لم أحد dhegeystayaal, iminkana ku soo dhowaada muxaadaro ka hadli doonta fadliga soomka yowmu caashuuraa oo ku beegan maalinimada sabtida ah. محاضرة وحالكا نوغسو جيدين دونا فضيلة الشيخ حسان حسين آدم. وأعري أهله أنا وجد هكذا الله يريد المسلمة، هكذا الله يريد المسلمة. مسلما كنت وأبقى مسلما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، إن شاء الله تعالى كلمة يركوبا وكصابسا مناسبة سوميدا مالك عاشوراء أيان شعلي استي إلى مسلمين تلو داغو. مالك عاشوراء ومالك قيمة بدن شريعة النكوين صوبانه عليه الصلاة والسلام يا صحابة وينين شرين كوينين شرين الصومان. fadligeeda subhanahu alayhi salatu wasalaam waxa ka sugan inuu yiri waxa lagu dhaafayaa sanad dambigii baa lagu dhaafayaa oo sanadkii horeeyay ah. marka muslimiintu waa inay ku dadaalaan maalinka qadariyaan, soomaan, ilaahay u dhawaadaan, caabudaan, ilaahay baryaan. ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa anaga iyo iyaguba inuu soonka cibaadada ka aqbalo. yawmu caashuraa waa maalinkee ahlu cilmigu way isku maandhaafeen maalinka xadididiisa muddo ahaan waa maalinka sagaalaadba سواء مالك طبناد بش محرم أما الزكاة الصومالية أتقن. في صحيح مسلم وحكوسوغان حديث ابن عباس وتلمامية يوم عاشوراء إن ويهي مالك سقالات بش محرم أما زكو. تابعي ويديين وحكويري مركب بشو أي بلاتو ترسو واغا مركب بريو مالك سقالات واغا كبريانا الله صومنها كوبريو كاسا يوم عاشوراء sidaasoo nabigu yeeli jiray, sidaasoo ibn Abbas yiri. aimada madaahibta afartaana waxa ku raacay al-Imam Muhammad Isa Shaafici ayaa asaguna sidaa qaba oo caashura u arka inay tahay maalinka sagaalaad. wadaadda kale ku taageersanna waa jiraan oo fuqaada kale iyo muxadisiin waaweynba. culimada laakiin badankood waxay u badan yihiin yawm caashura inay tahay maalinka tobnaad ee bisha zako ama muharram loo yaqaan. xagga muddada waa inta waxaa sunno oo wanaagsan maalinka tobnaad ama sagaalaad labada qowlba siday qabaan in maalin la raaciyo ka dambeeya ama ka horeeya la raaciyo siday sunnadu sheegtay si loo khilaafo mushaabahatul yahuud aw mushaabahat ahli kitaab si loo khilaafo yahuudana marka loola jeedaa in lagu khilaafo arrinka asaga. nabigu asagoon maalinka tobnaad aan waxba raacin laakiin niyeystay oo go'aansaday ayuu tii alla ku timid. muslimiintu marka waxa u yaala inay iyagu himmiga iyo niyadda rasuulka ay fuliyaan oy maalinka tobnaad maalin raaciyaan. sabtida soonkeedana culumaa wax ka yidhi marka iyadan inaan tacliiq yar raacina ila quman maadaama isku beegmeen maalinkii sagaalaad ay maalinka tobnaad, sagaalaadna uu jumco noqday, tobnaadna ay sabti noqotay.
si guud culimada muslimiintu laba ra'yi ayay ka qabaan marka la soo ururiyo maalinka sabtida soonkiisa. culimada badankeed waxay qabaan maalinka sabtida in la soomi karo, laakiin ay karaaha tahay in lagu gooni yeelo soomid keligii oo usbuucii maalmihiisi kale laga maaga sabti, sida jumcadaba loo diiday keligeed in laga maago maalmaha kale usbuuca. haddiise maalinkaa lagu ladho in aan dhib jirin bay wadaaduhu u bateen. culamo waxaa jira iyagu qaba maalinka sabtida lama soomi karo waxaan ka ahayn waajib, waxaan farad ka ahayn, bimacnaa soon sunna ah lama ogolo sabtida, ama soonka ha noqdo soon muddo leh, ama ha noqdo soon sabtidii wax kala la raacinayo, ama mid keligeed lagu maagayba ha noqdee tatawucan in la soomo dhan bay diideen. maalin sunna ah oo laysku hayo waa xaaraan soomideedu ama waa karaaho soomidiisu iyo waa bannaan tahay, anoo ma arko in lagu khamaaro hawsha ayada waxaan u arkaa jumcaha oo maanta sagaala in la soomo, ninkii marka maalinka ku kaaftoomana waa khayr, ninkana axadda ha raaciyo suu markaa mukhaalafadii yuhuudda ooga baxo hadduu u baahdo. haddii xataa karaaha lay xadiidku taxriim ma faa'iideynaya la yidhaahdo karaahu faa'iideynaya, karaahiya cibaada ma kulmaan fiqhiyan. usuulka ninka yaqaano wuu garanayaa karaahiya shaygu waa karaaho, waana cibaada ma suura galaysa, lama soo helayo shay cibaado ah xaggana karaaha ah. waxaa weeyaan wadaadaan nadarka sheega, laakiin khilaaf iyo naqdi baa ka taagan. xataa nadarku shaygu karaahiya ma kulmaan cibaado, laakiin waxaa kulma karaahiya ibaaxo. shaygu waa makruuh laakiin waa bannaan yaa la odhan karaa, laakiin waa cibaado waana karaaha, suuragal ma aha. masalada nadarkana khilaaf culus baa ka taagan. intaasaan jeclaystay muslimiinta inaan la wadaago. marka maalinka alla soomaha lagana faa'iidaysto. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعري أهله أنا وجد وأرى المنكر لا أرضى به. dhegaystayaal inta ayaynu kusoo gabagabeynay muxaadaradii ka hadlaysay fadliga soomka yowmu cashuuraa oo ku beegan maalinimada sabtida ah. muxaadaradu waxaa halkaan noogu soo jeedinayay fadiilatu sheekh xasaan xuseen aadam. halkaan naga dhagaysanaysaan waa idaacadda qur'aanka kariimka. dhegaystayaal idaacaddu waxaa idin xiriirinaya anigu ah maxamed salafi. intayna ku kulmi doona muxaadaradan mid la mid waxaynu idinka tagaynaa sidaasii nabadgelyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عشت سأبقى مسلما أحمل للناس الهدى. وكما عشت سأبقى مسلما فاجعل اللهم مني مسلما، فاجعل اللهم مني